عباد الله سؤال بامودن إن أدياد ليسو ويديو سؤال شاسي واحد تاي قفك مسلم كي شهادنا يا إلهي الرسول كي سر ميسن دين الإسلام كنا الدين تاي حدقا واه وسؤال قفك استو مسلم أيتين سويديو قرهن مالمهنا إنو تشوغنو وقضية دقن ككوسا بسن الله هذا الهيو قفك مسلم كدقن كي سوى دينتيس يا دقن واه waayo sida hore aynu tilmaanayna gogol dhiga ka dhignay diinta islaamku dhaqankii wanaagsanaa oo dhan way sheegto dadka way ku dhiiri gelis kay ka aamustay aan xaaraantimayn shareecada aan ka hor imanahay noomida ibaaxaysay oo diintu ay ogolaatay qofka muslimka ah wax aqeedadiisa diintiisa iyo shareecadiisa ka hor imanaya مرنبا دقن وما النقضان إلهي سبحانه وتعالى تانا قرآن كي نوقع عديي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم قف مؤمن ورقا يمد ضمرة منا وما بنانا هدو إلهي وح أمره إنا يوحك لك الدورتان inaad ka doorato caado iyo dhaqan khilaafsan inaad ka doorato hawada naftaada iyo sida ay doonayso inaad adduunyo ka doorato in cid kale raali gelinteeda aad ka doorato oo aad ka horeysiiso inta midina kuma banaana inaga yaa tusaale inoo ah hadaynu muslimiin nahay oo aynu ku dayanayna soo nabi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed dhaqankiisu muxuu ahaa dhaqankiisu diinta ayuu ahaa wax kastoo diinta khilaafsan oo ka hor imanaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqan uma ahayn caaisha radiyallahu anha ayaa waxaa laga waraystay maadaama ay xaaskii nabiga ahayd xogogaal ay u ahayd waxa dhaqan u ah muxuu ahaa dhaqanka nabigu calayhi salaatu wasalaam faqaalat kana khuluquhu alqur'aan rasuulka dhaqankiisu wuxuu ahaa qur'aanka qur'aanku wax kastoo uu amaanay uu dhiiri geliyay uu faray oo uu ogolaaday nabi maxamed dhaqan buu ahaa wax kastoo qur'aanku uu diiday uu xaaraantimeeyey dadka uu ka waaniyey dhibaatadiisa uu sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqan uma ahayn qofka muslimka ah ilaahay wuxuu amray inuu nabi maxamed ku daydo laqad kaana lakum fii rasuuli llaahi uswatun xasana waana arrin ka turjumaysa qofku iimaanka uu nabi maxamed rumaysan yahay heerku gaarsiisan yahay iyo jacaylka uu hayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inuu ka dhigto dhaqan wixii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqan u ahaa wixii xumaantiisa awgii nabi maxamed uu uga tegey iyo khilaafka uu khilaafay diin lislaam cidda doonaysabaha ku camal fashee waajibka qofka muslimka kala gudbooni وتلذا وبحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو يري ودعوا ما يقول آباؤكم أي مما يخالف هذا الدين الذي فيه عز الدنيا والآخرة وشرف المسلم فيهما وحكستو الدين تنقفك عزتي شرفتي سايكوتر تكوري منايا وددك إذن كوري ودن تيرين أما دقنا يكدقن تيرين كتقبوا لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وارن آدي آد لولا يابو إن قف مسلمي إلهي الدين توسود التشيي وهذا الكي أحكامتي إلهي إنو كدورته وحيابا لقولي وادقنا وددك يهور أياكو عمل فلجري إلهي إيا الضد بو قف كاسي كلا دورتي مركاسو وليبا انتو إلهي كتغي بو ضدك دورت وحي إلهي وأمري وناك سنابو كتغي وحي إلهي وديدي بو السمين يا الدليل كي سوين نوحوية أرنكني واحد يا دقن إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنو كدقو دقن كينا يا عادات كينا با كوا وافقسن كنا صليسن دينتين إسلام كأقول